السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان dadweynaha Soomaaliyeed ee markaa madasha sigistii waxaan maanta la socodsiinaynaa inaan waraysi aan ka qaadi doono saaxiibkay Ali Axmed Maxamed Ali Daacuun oo isagu haatan jooga magaalada Hargeysa Somaliland. Ali Daacuun marka hore ku soo dhaw madasha sigistii. waan ku soo dhawahay waana idin salaamayaa dhammaantiin. Ali waan ku salaameynaa laftigaygu sabraas bay ugu noqotay adoo Hargeysa jooga in dhaweyd waxaan ku ogaa adoo xamar iyo Nairobi iyo Abu Dhabi iyo Turkiya intaba jooga marka maanta Hargeysa inaan naga soo hadasho laftigeedu waa ka mahad celinaynaa. bal marka ugu horeysa siyaasadda Somaliland insha Allah mas'alo ugu horey ku bilaabayna Somaliland ama ku noqoshada Hargeysa goorma kugu dambeysay Hargeysa ku laabatay Hargeysa adeer mar walba waan imaadaa safarkayga hadda ugu badnaa wuxuu ahaa safarkii aan ku tegay magaalada Jubbe Kiigada halkaa waxaa degan duco waalid ayaan u bixiyey safarka duco waalid walaaladay aayooyinkay eheladay oo dhan oo aanan 30 sannadood arag ayaan ugu tegey magaalo la yidhaahdo Kiigada oo 1 kiiloomitir u jirta magaalada Jubbe markaa socdaalkaas magac baan u bixiyey duco waalid inaan ka soo ducaysto dadkaygii aanan 30 sannadood arag Somalilandna kheyraa iga jooga xaas baa iga jooga caruur baa iga joogta iyagana waan u imaadaa markaan fursad helo marka sidaas ayaa mar walbaba aan Somaliland ku imaadaa. waa hagaag waxaan ogeyn Somaliland inay mamnuuc ka tahay inay imaadaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee mabda'a midnimada aaminsan marka adigu imaanshaha Hargeysa ama Somaliland aad timaadid ma special status ayuu leeyahay adeer horta anigu wasiir ma noqon xildhibaanna ma noqon agaasimana ma noqon shaqaalena kama noqon dowladda Somaliland dadka ay ka mamnuucday waa dadka xilka ka qabta ama xilka ka haya. waa gartay aad iyo aad baan u gortay su-aashaan ku weydiinayo bal hadda waxaa joogta magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland siyaasadeedu maxaa usoo kordhay anigu Somaliland waxa aan ka tegey Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo nool oo ila dardaarmay waagaana had iyo goor joornaal baan wax ku qori jiray marka waa ila dardaarmo wuxuu yidhi halkaani ku hayn kari maysee iskaga tag aniguna waan iskaga tegayaayo waxaad moodaa inuu geeridii ogaa ilaahay ha u naxariistee jannadii ha geeye nin liidara oo hogaamiye ah oo hal abuur leh ayuu ahaa markaa waktigaas oo ina Cigaal bila ay ka hadeen noloshiisii ayaan tegey oo aan ka tegey Hargeysa oo aan ka shaqo tegey. dhegeystayaal weli meeshaa naga maqlaysaan waa madasha sigistii maanta waxaa marti noogu ah siyaasiga caanka Soomaaliyeed Ali Daacuun. Ali su-aashaan ku weydiinayo dardaarankii aad qaadatay madaxweyne Cigaal adigoo yiri Somaliland kuma mataqaanaa celinaysa iskaga tag hadda waxaa moodaa inaad soo laabatay adiga kaligaana maahe waxaa jira siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed oo markii hore aan isnaa mabda'a midnimada Soomaaliya hadda laakiin aan moodad inay ka tanaasuleen uuna ka mid yahay Professor Axmed Ismaaciil Samatar imaanshaha Axmed Ismaaciil Samatar adigu sida u aragtaa iyo kubritaanka xisbiga kulmiya Soomaalidu waxay tiraahdaa nin waliba isagaa dantiisa kaa og sida aan warka ku hayo Axmed Ismaaciil Samatar waa beeshin haddii uu beeshin noqdayna dee meeluu ku nasto ayuu u baahan yahay sida aan filaayo imaatikiisu intaa kama badna
meel uu kulmiye ku biirayna anigu ma maqal haddiise uu kulmiye ku biiray dee waxaan u malaynayaa inaan askariga iyo ninka digriiga sita jaamacaduhu inaanay meel wada geli karin laakiin warkaa idinkaa iga waroone bal horta aan hubsado inuu ku biiray kulmiye iyo inaanu ku biirin ninkaasi inuu unbeyshin yahay dabadeedna uu magaalgalkiisii ku soo noqday intaa waan hubaa laakiin taa kulmiye weli iima cadda laakiin haddii ay caddaato dee niman isku biiri karaba ma aha axmed ismaaciil samatarna muddo badan buu arday sida maskaxdooda fadhiyo wax u sheegayey dee haddii uu kulmiye ku biiro iyo haddii uu ucid ku biiro iyo haddii uu xisbi samaysto dee waxaan u malaynayaa in wax badan uu ardaydii uu luminayo ama aanay dhegaysan doonin. in dhaweydba waa la socotay saxaafadda Soomaaliya waxaa soo cusboonaaday in maamulka Soomaaliland iyo maamulka Khaatumo wada hadal rasmi oo bilowdeen magaalada Caynaba ka bilowdeen adigu waxaad joogtaa hadda caasimadda Hargeysa bal nuuxda iyo wada hadalladaas iyo qaabka maamulka Khaatumo Soomaaliland ku hadli karto maxaad noo saadin kartaa sida aad u maqasheen baan u maqlay waa soo dhaweynayaa wasiirka informationka ee Somaliland ayaan aniga ii xaqiijiyey oo miidiyaha ka hadlay waxa aan leeyahay hambalyo laakiin waxaad moodaa inay jiitamayso oo aanay firfircoonayn oo ma aqaan ma xagga Khaatumaa wax ka jiitamayaan mise xaggan maamulka Somaliland ayay wax ka jiitamayaan labadaasaanan u kala garanayn laakiin rasmigu waxa weeye waxaa ku khasban Somaliland inay hesho xuduudihii British Somaliland Protectorate la oran jiray haddii aan xuduudaha tilmaamo dhinaca xeerta waa ceelaayo haddaa xeerta laga yimaado oo oogada loo yimaado waa ceel doofaar haddii ceel doofaar laga soo dhaqaaqo waa dahar haddii dahar laga yimaadana waa yoocada oo halkaa ay degan yihiin maamulka Khaatumo caliyow sida la socotay waa hadalladaas waa hadallo bilow ah laakiin isla markay saxaafadda soo galeen waxa sidii inta u qeeliyay maamulka Puntland oo iyagu diiday waa hadalladaasna soo dhaweynin bal madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas isagu oo si toos u weeraray madaxweynaha Khaatumo arrimaha Puntland wada hadallada Khaatumo ee Somaliland ugu xiran maxay tahay markaa qiyaasta horta Cabdulle Cali Gaas weerarku Cali Khaliif weeraray Cali baa ka jawaabi doona Puntland inay qayliso waxa ku kalifay wax la yiraahdo harti ama wax la yiraahdo isir oo anigu aan garan waayay wax qabadkiisa oo anigu aan garan waayay maxaa kaga habboon laascaanood maxaa kaga habboon ceelaayo maxaa kaga habboon baran maxaa kaga habboon dahar intaada maamulka Puntland waan garan waayey waxa kaga habboon oo uu ka qabtay hadday caws tahay iyo hadday calaf tahay iyo hadday cood tahay iyo hadday ciidan tahay midna maamulka Puntland kuma soo kordhin sool iyo sanaag marka isku isir baanu nahay oo harti baanu nahay dee Cali Daacuun baa mar hore nacay oo ka gudbay oo afar dabaq iska soo tuuray dee lafahayda ma dilin
oo xubin baarlamaan kuma dileen cidda igu kalliftayna dee majeerteen bay ahayd siyaasiyiintii markaa meesha ka joogtay markaa anigu isirkaa waan garan waayey wuxuu soo kordhinayo. waa hagaag dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan waa madashii sigisti oo aalaaba aanu ku wareysano siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo arrimaha isbedbedelaya hadba siyaasadda waddanka ka socota waxaa maanta khadka telefoonka si toos ugu jira magaalada Hargeysa siyaasiga weyn ee Cali Daacun. Cali annagoo kusii socono su'aalaheennii wadahadallada Khaatumo iyo Somaliland u bilowday iyo dhawaaqa Puntland ka soo baxay markaan ka nimaadno waxaa jirta dhawaan inuu madaxweyne Siraayo sameeyo isku shaandhayntaasoo markaa fiirisid ka arkaysa isbeddel aan horey Somaliland ugu dhici jirin oo hadday noqon lahayd wasaaradda arrimaha gudaha ee loo magacaabay Yaasiin Faraton adigu siyaasi ahaan wadahadal isku shaandhaynta xilligan oo Siraayo xilka ka degayo iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee mataqaana Faraton loo magacaabay maxay hadhow carqabad u keeni kartaa wadahadallada Somaliland iyo Khaatumo la filayo mustaqbalka? وتعاون مدحوينه سومالي لابلاس عانود بوشوغاية عبدولي علي قاصلو شيغو هديو إتار هايو يهدو عدود هايو يهدو وحيو سيران يوعاو هردالات عانود مركاهوك رير بودلان وإلي تاكو قوستان وحايسو هذا وزير كأغمها القناة إلا مقعابي anigu shakhsiyan Faraton waan aqaanaa laakiin mabda'iyan waxaan rumaysnahay wasiir la magacaabay iyo wasiir la eriyey midna inaanay waxba tarayn waxa wax taraya waa kow in aragti siyaasadeed ay Somaliland la timaado oo xuduudaheedii ay ku gaadho laba inay Khaatumo si degdega ula heshiiso saddex in dalku halka uu maanta marayo ee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal midhihiisii in wax lagu daro intaasaan horta aniga iiga qiimo badan wasiir la eriyey iyo wasiir la magacaabay wasiirka arrimaha guduhu waxaa loo magacaabay waxa aad ka soo qaadaa siyaasaddu waxay u baahan tahay ma fulaysaa mise fuli mayso marka anigu waxa aan door bidi lahaa in Somaliland ay degdeg ula heshiiso Khaatumo oo iyagoo wada dhan ama dulbahante iyagoo wada dhan ay wax la qaybsadaan ummadda reer Somaliland kadibna la tago xuduudihii taas ayaa aniga iiga qiimo badan wasiir la magacaabay ama laba wasiir oo la magacaabay ama saddex wasiir oo la magacaabay. waa gartay Cali Daacun hadan arrimaha mataqaana Khaatumo iyo Somaliland intaas uga tagno aan dhacay xamar aadno in dhaweyd ba adigu xamar baa joogtay xamar hadda siyaasadii madashu qodobay soo saartay qodobadii waxaa ka boodoodiiday guud ahaanba xubnaha la yiraahdo xubnaha mataqaana reer waqooyi ee Muqdisho jooga hadday noqon lahayd siyaasiyiin wasiiro xildhibaano iyo isimaba shalay ugu dambeysay shir jaraa'id bay qabteen waxay sheegeen inaysan macnaha haba yaraatay ka qaybgalaynin hanaanka siyaasadeed magaalada Muqdisho ka socda xubnahaas maadaama adigu aqoon badan u leedahay deegaankaas xamarna aad joogtay wax badan kala socotid maxay tahay sababta dhabta xubnahaas hadda saacadan ay uga hadleen ee dhaheen haba yaraatay waxaan ka qaybgalayno wada hadala koonfurna si khaas u eedeeyeen arrimaha maxaa nooga biirin kartaa xogaalkaaga ayay nimankaasi horta maxlal ma aha nimankaasi hore ayay u ahayd inay wax u gartaan way garan waayeen haddii ay maanta garteenna dee xuquuqdoodii niman u dagaalamaya ayaan anigu u arkaa xuquuqdoodii haddii ay u dagaalamayaanna dee qofku wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo garowshiiyo markaa nimankaasi waxaan anigu u arkaa inay beesha caalamka iyo nimankaa koonfureed inay leeyihiin war annaga waxayagii baa nagaga kiin maqan ee beesha caalamey markhaatina ka ahaw waxayagiina ka hadhi mayno waana ku dagaalamaynaa waana baadi doonaynaa waana ku hadlaynaa horta anigu sidaasaan u arkaa
markii anigu aan hadda xamar muddo aan ka sokeeyey yarna waxa ay qolada koonfurta oran jireen waa niman soo shaqo tegay oo bushaaradaysan oo haddii anaba ku rooyahaye dee mushaar ha la siiyo dee nimankii noqon waaye nimankii nooca ahaa waxay noqdeen niman leh xuquuqdayadiibaa maqan cidda ay ku maqan tahayna ka yeeli mayno waana dhacsanaynaa anigu sidaasaa nimankaa u arkaa okay caliyow xuquuqda ka maqan xubnaha hadda sheegaysid oo horey aan uga maqnayno hadda uga maqnaatay oo ha noo sheegi karto maxaa ka mid ah nimanku waxay yidhaahdeen annagu waxaanu nahay niman reer waqooyi ah koonfurna waa tihiin koonfur oo dhan stakeholderskeedii kuma jawrsadi karaan xuquuqdayada waqooyinimo ereygaasuna waa erey weyno dee koonfur iyo waqooyi waa horey wax isku darsatay dabadeedna waqooyi somaliland buu noqday marka waqooyinimadoodii ayay ku raadsanayaan xuquuqda ka maqan okay cali marka realityga macnaha fiirisid waxa la isku hayo waa dhismaha xubnaha aqalka sare waxaan ogsoonnahay soomaaliyana ama qaybta koonfureedna inuu ka jiro wax yara federalism ama maamul goboleedyo matalaya dadka deegaanka hadda kahor maruu saxaafadda ka hadlay madaxweynaha puntland cabdulle cali gaas wuxuu sheegay nimanka reer waqooyi oo xabar ka qeylina inay yihiin niman iyagu meesha iska jooga ee cidna matelin xubnaha ay raadinayaan ay tahayna wax saa'ida aanan ka yeeli doonin marka iyagu miyay see ku dhici kartaa inay ka dadbansadaan mataqaanaa maamulada ka jira soomaaliya iyagoo weliba aan ognahay inaysan maamul rismi u matelin xubnaha reer waqooyiga xamar jooga adeer markaynu horta runta sheegno hadday aroorta diyaarad ka soo raacaan oo cafiskii madaxweyne fiinlaanya uu u fidiyey oo ay ka soo dhaqaaqaan adaanku weydiinayaaye maxay noqonayaan sow noqon maayaan reer koonfureed su-aasha adaan dibkuugu celinayaaye koonfur bay ku dambaynayaan oo ay noqonayaan marka waa midix nimankaasi midixdii beesha caalamkuna ay yiqiin ee jamhuuriyad soomaaliyeed la yiqiin haddii ay yidhaahdeen waxayagii baa la dhacay oo aanu doonaynaa iyagooda aan cidna yidhi waanu cidna aan metelin oo cid kaleba aan sheegan dee adeer xaq bay u leeyihiin lacagta lagu bixiyo oo beesha caalamku ay ku bixiso muqdisho ma koonfur baa la siiyaa mise soomaali baa la siiyaa su-aashaa labeedna adaanku weydiiyey waa soomaali baa la siiyaa iyagu miyaanay soomaali ahayn okay caliyow wax walbay ahaato markaa fiirisid waxa dhabta la isku hayo ama buuqa ka imaaday waa deegaanada adigu waa kasoo jeeda siyaasi ahaan gobolada s s c oo la leeyahay xubnahoodii waa la kala qaybiyey waxaana la kala raacisiiyey puntland iyo somaliland haddana hadalka ama maqaamka meesha yaallo waxa la yidhahdo xubnaha reer waqooyi reer waqooyina waxaa la yidhahdaa markii la fasiro shantii gobol ee somaliland laisku oran jiray ingiriisku guubaysan jiray horta waxa xamar ka jira oo laisku hayo ma magaca reer waqooyiba oo la diidan yahay mise magaca somaliland oo maamul goboleedkii matalayaan iyo xubnaha la kala qaybiyey s s c arrimahaas laftigeeda ma wax indhaa laga qarsan karaa horta adeer sool iyo sanaag qabaa'ilada dega puntland ayay ku gowracan yihiin maamul madax banaanna ma samaysan somaliland baanu lahayna ma odhan waxay yidhaahdeen puntland baanu nahay mar hadday yidhaahdeen puntland baanu nahay dee adeer puntland bay wax la leeyihiin ilan ilaahay garta sheega ayuu yidhi hadday odhan lahaayeen waxaanu nahay reer waqooyi oo annagaa wax ayaga maamulanayna dee garaad jaamac garaad cali kama xanaaqeen cali qariib garaydna kama xanaaqeen sool iyo sanaag waxaad moodaa inay noqotay naxlan puntland naxlan bay noqotay ay puntland ku awrkacsato oo halkii horan dib ugu noqonayaaye isku istir baanu nahay aan waxba tarayn ayuunbay puntland haysaa marka sool iyo sanaag markaa nagala socotaan waa madasha sigeysti waxaa khadka telefoonka si live ugu jira magaalada hargeysa siyaasi cali daacun annagoo gabagabadii ku jirna
su'aalaha ugu dambeeya waxaad tiri waxaan safarkii joogay magaalada la yidhahdo Yuba ee gobolka Sanaag waxaan filayaa intii halkaa joogtay inay shaqo mareen maamulada Somaliland iyo maamulka Puntland oo ku saabsan sida noqdii magaalada Dahar la geenay isku dhac iyo xildhibaano la qafaashay arrimaha adoon oo soo koobaya see macnaha dhabta ah ee wax u dhaceen halkaas anigu Yubbaan joogay Yubbe iyo Jiingada xere hinjiye weeye hinjiyaa dega 1 kiiloomitir baa Yubbe iyo Jiingadu isu jiraan sanaadiiqdii markii Dahar la geeyey 2 guuldaro ayaa dhacay guuldada Somaliland bay ku dhacday oo sanaadiiqdii waa la soo celiyey guuldarada labaadna waxay ku dhacday Puntland oo dadna waa laga laayay maxaabiisna waa laga qartay nin xildhibaani ku jiro nin reer maxamuudi ku jiro oo dabadeedna gacanta dhaawac ka noqdo dhakhtarka ceerigaaba lagaga jaray halkaa waxaa ka dhacay markaa 2 guuldaro oo ciidanka Puntlandna waa laga adkaaday Somaliland sanaadiiqdeedii way la soo noqotay waa hagaag su'aashii ugu dambeysay aan waraysiga ku soo go'aynayno adigu cali ahaan hore waxaan u aaminsanayn in adoo aaminsan midnimada Soomaaliya haddana waxaad joogtay magaalada Hargeysa adigu hadda mabda'aagii maxaa iska bedelay maxaad ku qorshaysanaad adeer waxaan ku yidhi Hargeysa waxaan u imi reerkaygii Hargeysa waxaan u imi carruurtaydii Hargeysa waa meel aan mar walba ibaado ayaan ku idhi meel allaale iyo meeshii aan shaqo ka helayo ninuu shaqo doonanaya baanahay anigu markaa waxaad kala saartaa dadkan halka degan Somaliland dee waa dad tashaday oo yidhi waanu go'nay iyagaana aniga iga fara badan dadkana waa lagu ixtiraamaa taladooda laakiin Cali Daacuun hadday xamar noqoto iyo hadday Turkiga noqoto iyo hadday Kenya noqoto iyo hadday Jarman noqoto carruurtayda iyo reerkaygaan u xoogsanayaayo wax iga mamnuucaya ma jiraan aad iyo aad kaasi wuxuu ahaa Cali Axmed Cali Daacuun oo khadka telefoonka lagu warramay isagoo jooga magaalada Hargeysa waraysi waxaa idin qaaday anigoo Asad Suudiya intaan waraysi la mid ah ku kulmi doona waxaan idinka tegaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed mabarka madasha 60 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh